Cabdullaahi Muuse Xasan Galgacal Cabdullaahi dhaqan xumo waa ninka ugu akhlaaqda daran ee maanta ee wariyaasha Muqdisho. Waa nin bahdilan dhanka akhlaaqda. Bal fiiri sawirkan waxaa ka muuqda daankiisa, fiiri hareerta sidoo kale. Waa nin nolosha ka dhacsan. Waa nin ku soo koray darbijiifnimo sidoo afkiisa ka qirtay oo yaraantiisa xataa garaabiista ahaa. Aqoon heer sare ma lahan. Tan kale waa fanaanka ugu axmaqsan fanaanada weligiis inta arkay fanaannimo sheeganaya hal mar horumar muusiga gaariyaa yaqaan heestiisa ayaa dhageysto xataa YouTube lagama baaro. Marka nin nolosha ka dhacay oo bahdilan oo dhaqan xun. Maanta wallaahi culaysyada ugu fara badan oo maanta saxaafadda haysto waa kaas camal. Marka waxaan leeyahay saxaafadda ninkaasaas ka qabato magac ayuu ka dilay. Waa nin dhown qaataa oo bahdilan oo noloshiisa ay tahay nolol oo khiyaali ku saleysan. Marka ninkaas aad u jeedaan waaye qaabka uu macnaha jirkiisa ka samaysan yahay. Marka mar walba balwadda ee ka tan badatana waa hadaaqa. Marka dhaqan xumadaas in bulshada lagu faafiyana waa ka hortagayaa. Cabdullaahi Muuse Xasan Galgacal Cabdullaahi dhaqan xumo waa ninka ugu akhlaaqda daran ee maanta ee wariyaasha Muqdisho. Waa nin bahdilan dhanka akhlaaqda. Bal fiiri sawirkan waxaa ka muuqda daankiisa, fiiri hareerta sidoo kale. Waa nin nolosha ka dhacsan. Waa nin ku soo koray darbijiifnimo sidoo afkiisa ka qirtay oo yaraantiisa xataa garaabiista ahaa. Aqoon heer sare ma lahan. Tan kale waa fanaanka ugu axmaqsan fanaanada weligiis inta arkay fanaannimo sheeganaya hal mar horumar muusiga gaariyaa yaqaan heestiisa ayaa dhageysto xataa YouTube lagama baaro. Marka nin nolosha ka dhacay oo bahdilan oo dhaqan xun. Maanta wallaahi culaysyada ugu fara badan oo maanta saxaafadda haysto waa kaas camal. Marka